kulanti waxaan wanaagsan dhammaan baad ku xiran janalka kulmiye technology maanta waxaan isla arkaynaa sida loo sameeyo sectionkan waxaan rabaa inaan website-kan aan dhammayno marka waxaan sameynaynaa sectionkan kaas oo ay why you choose us sababta aad ku dooranaysid shirkadeena okay waxaan soo kacsanaynaa Visual Studio Code sida ujeedin waa noo soo kacay marka faylka aan rabna inaan ku furno soo jiidaya kadib waa ku deynaya kadib faylkaas ayaan noo furmaayo waxaan sameynaynaa faylka ayaan furaynaa browserka ayaan kusoo kicinaynaa waa kaas asigana uu noo soo kacay marka waxaan gelaynaa inaan koodkeena qorno marka ugu horeysa waxaa qoraysaa section cusub ayaan rabnaa inaan abuurno section markii aad abuurto haddana waxaan leeyahay span dot header header cusub ayaan abuuranaa waxaan leeyahay span kadibna meeshan waxaan gelinayaa xayawaankayni judas kadibna glass ayaan siinaynaa kaasoo fast word aan ka wadaa waa ereyga bilowga kadib waxaan leeyahay wow markii adho waxaan dhex gelinayaa column markii aad dhex gesho haddana waxaan leenahay span kadib markii aan span gelino spankan waxaan siinayaa glass kaasoo header 2 kale aan iskaga bixinaynaa kadibna waxaan qoraynaa ciwaankeenii we have a lot of skills ciwaankeena ayaan qoraynaa kadib waxaan leeyahay .content meesha aan contactigeena aan ku qori lahayn kadibna waxaan leeyahay long 15 lines aan rabaa viewda tagaya water baa leeyahay si macnaha asiga dhan aan u aragno kadib waxaan sameynayaa columnkan ayaan qaadayaa horta aan aragno ilaa hadda wixii aan sameeyo waxaan leeyahay save kadib ayaan kaas qaadaynaa sida ujeediin hadda intaan ayaan abuurnay marka waxaan sameynaynaa columnkan ayaan qaadayaa diftan ayaa taabanaysaa difteeda kale waatana columnkan ayaan copy soo leeyahay markaa dhaho hoostiisa ayaa imaanaysaa kadibna waxaa ku leedahay basti columnkeeni koowaad waaye kadib inta ayaan bedelaynaa ciwaanka la iska bedelaynaa ciwaanka waxaa ka dhigayaa fasting work haddana kan ayaan qaadaysaa ilaa 4 jeer ayaa rabnaa basti ayaa leeyahay kadib ciwaanka ayaa bedelaynaa kanna waxaan ka dhigaynaa good support kadib waa qaadaysaa haddana waa 3 kadib kana 4 ku noqonayo kadib ciwaanka ayaa bedelaynaa kadib inta ayaa waxaan ka dhigaynaa maintenance kadib waxaan leenahay save kadib waa intaa imaanaynaa sidaa ujeediin waa kaasa intaas ayaa qornay kadibna waxaan gelaynaa designkeyni kor ayaa tegaynaa section ayaa leeyahay kadib waa qurxinaynaa border ayaan gelinayaa border 2 pixel solid white kadib waa isla arkaynaa sidaa ujeediin waa boxkaas kadib waxaan leenahay keeda ayaan yareynaynaa waxaan ka dhigayaa web 80% ayaan ka dhigaynaa
okay sawjeedin waa kaas 80 boqolkiiba shaashada ka dhignay kadib waxaa leenahay margin 40 pixel and auto okay sawjeedin waa kaasa dhaxda ayaa la keenay okay kadib waxaan dalbanaynaa header kaasoo kan waxaa lanaa ciwaankan inaan qurxino meeshani header waa kana this one widthka ayaan waxaan ka dhigaynaa boqolkiiba 100% text align center kaasoo qoraalka dhexda gey display inline block okay waa isla arkaynaa waa kaasaa dhexda ayuu tegay farta ayaan waaweynaynaa font size waxaan ka dhigayaa 30 pixel waa 30 pixel okay sida ujeediin waxaa ka dhigay 30 pixel kadib waxaan dooranaynaa fast word kaasoo ereyga koowaad waa kana fast word waa kan galaaskan waaye okay color ayaan siinaynaa waxaa leeyahay color rbg 0 okay kaas ayaan iska dooranaynaa u koreeyo colorka u koreeyo halkan bracket ka bixi kadibna waa arkaynaa wixii u noqday kasi ujeedin waa kaasa borderka ayaan ka saaraya kan waa iska saaray borderkaas okay waxaan design garanaynaa row kaaskan away midkan rowgan kaas ayaa design garanaynaa haddii aad rabto inaad aragto waxaa ku darsataa border wow kan ayaan design garanaynaa padding kaas oo 2 pixel kadib waxaa rabaa oo kale inaad ku darto padding haddii aan ku darno kadib waxaa leenahay display flux okay waxaa kusoo sigaysaa margin top 20 pixel kor waxaa kusoo sigaysaa 20 pixel okay waan arkaynaa markaa okay sida ujeediin waa kaasa qaabka ayuu noqday okay kadib waxaan design garaynaynaa column okay okay waxaan leenahay text align center margin 5 pixel waxaan ku daraynaa haddana padding kaasoo 8 pixel kadib waxaan ku daraynaa box shadow balse waa idin tusinaa okay sidan ayuu noqday kadib waxaan ku daraa box shadow 5 pixel 10 pixel kadibna waxaan ku daraynaa color sidan waa ku dhaafi karnaa color default u qaadanaa haddii aad rabtana color kuu khaaso waa ku darsan kartaa cadaan madow wixii aad rabto hadda colorkaas oo defaultiga ayu hore ka qaadanaa kadib waxaan ku daraa color okay color ayaan leenahay kadibna colorkaas ayaan ku daraynaa kaasoo hashtag 9d9393 kaas ayaa ku daraysaa okay kadib waa arkaynaa colorka uu noqday soo farta colorkaas ayay qaadatay kadib waxaan leenahay border radius aan leenahay taas oo hareeraha kasoo jebi border radius 5 pixel kaasoo geesaha kasoo laab okay geesaha ayaa laga soo laabay sida ujeediin
word spacing kaasoo ay xarfaha kala siki word spacing waxaa kala sikisaa xarfahan 2 pixel xarfaha kala siki 2 pixel okay sida ujeediin waxaa la sikiyey 2 pixel ku dareynaa lane height okay kaasoo ah sadarada inta isku jiraan 1.3 oo kala ka dhig okay sadarada macnaha kala siki waaye okay kadib waxaan tegaynaa header kan waxaan kadibna dooranaynaa kan glasskan header glasskan ayaan dooranaynaa copy meeshaan kasoo dhaxso soo kadibna waxaa imaadaa qaybta css ka sigale pasta ku dheh header 2 color ayaan dooranaa colorkaas ayaan siinaynaa hashtag 999 daba amba db kadibna save ayaan dhaynaa kadib waxaan leeyahay refresh sida ujeediin waa kaasaa colorkaas ayuu qaatay casharkeenana intaas ayuu nagu egyahay videoga like saar janalkana subscribe saar si aad ugu soo biirtid bahda janalka kulmiye technology mahadsanid